innaga oo hoosheenii ku talajinno marka hore waxaan ka cudur daaranhayaa isma inaan kaabarino waxaa weeye markuu qofku wax barbaradaya waa markii iigu horreysay oo microphone intaan hor imaado dad aan hor istaago oon howl bilaabin noocan oo kale aan xariiri ka noqdo marka dee wuxuu wixii kugu cusub yihiinna waad khaldi wax badan baad khaldaysaa marka waxaan ka bilaabay magacayga baan iloobay cabdisalaam baa la yidhaahdaa cabdi cabdullaan ku magac dheerahay intaas bay idinku filan tahan malaynayaa waxaan rabaa inaan u yeedho qoraa axmed ismaaciil yuusuf oo 2 buug qoray asaga ayaa inoo sheegi doona buugtoo qoray iyo waxa ku dhaliyey inuu buug qoro uu kalena waxaan idiin raacinayaa inuu mid kalena soo wado marka soo dhawow doctor horta aynoo dambayso buwaagtaan qoray way tiro badan yihiin tiradooda waa adigaan kuu dhaafayaa sanadka damaad sheegi waayo taas caawa ma joogno ta kale waad mahadsantihiin runaaantii asalaamu calaykum caawa af soomaali baan ku hadlayaa 2-3 kelmadood oo sidaa aad sheegaysaan 2-3 buug oo inglishan xarxariiqay way jiraan weligayba laakiinse waxa aan u muuhdaa ama aan ku ciilbeelaa waa afka hooyo mar walba okay afka hooyo laakiin asalkiisiina caaweyna la joogaa waddanka taariikh markay noqoto aniga waxaan u dhashay oo aan ka yimi meel la yidhaahdo ceergaabo gobolka sanaag waa waddanka qaybtiisa bariga ugu fog galbeedka marka la soo gaarana dunbaygaga xidhan bal duntaa adigu sheeg waxaan ogahay inay murtidu ka timaado meesha waxaan ogahay inay ka timaado halyeygii soomaalida hadalka qaybin jiray gabayahanadii ummaddii afka loo dhiibay inay meesha u dhalatay ayaa had iyo jeeraale waxa kale oo had iyo jeeraale niyaddayda jiitaa waxay ahayd waxaan ka caamay daadii baa caawa la sheegayaa waxaa weli ka gooxayaa aniga dagaalkii 77kii heesihii markaan maqalo oo kale muujadoodu aniga dhul weyn bay geysaa laakiin inta ugu muhiimsan ay ugu beertay waxa weeye waxa la yidhaahdo soomaalinimo soomaalinimada dadka ay xusuusiya laftirkeedana waa dad fara badan oo meesha u dhashay cabdirasaaq qayb buu ka mid yahay intaan kaga cabanayaa waxa weeye ninkani markii hore science iyo waxa aynu ku maqan yahay baan moodayay moogtahay okay 2 kelmadood oo xarxariiq jirnayna wuu noogu soo dhigtay marka horta hibada meesha ugu muhiimsan waxa weeyaan qoraalku berigii hore waynu gabi jirnay gabayada ugu xoog weynaa oo anigaana leh hibadooda ugu faraha badani waxay ka timi gobolka la oran jiray Ogaadeniya rageedii ugu hibada weynaana magacyadooda way doon naqaanaa iyaga ku talaabsan maayo waxaan u malaynayaa inkastoo cabdirasaaq siyar canaanto ciisiri haddii aanad gabi karaynin bal hadda maxay haytay xaggan iyaga dadka waxaad hoosta u yargelisaa kelmado ingiliisha hase yeeshee waa loo baahanaayo taytalka laftirkiisa ayaa aada u muhiima waxaa aniga aada iila culus laakiin also tadawurka ama maxay ahaytay uu soo maray reer warfaa dee quruun dhan iyaga laftirkoodii waa qabiilahay kulligood wada mutacalimiina alxamdu lilah cabdirasaaq maxamed warfaa reer xaaji warfaa soomaalinimada laftirkeedii oo dhan way soo wada jiiteen oo way ku filaan weyday intuu soo maray all the way ka yimi Ethiopia meel la yidhaahdo iminka ama Ogaadeniya oo soo maray Hargeysa iyada laftirkeeda oo horta Hargeysa ma lagu ogol yahay iminka meel Hargeysa la yidhaahdo uu ka yimi oo uu sheeganayo oo uu xamar ku koray uu Mareykanna soo galay oo uu wax ka galabsaday wuxuu ka galabsaday aanay ahayn uu cadaankii iyo madowgiiba uu geed iskaga xidhay run ahaantii waxaanan doonaynin in aan dee hadalku iga daato doqoniinaduga iga soo qubato laakiin muhiimadda meesha ka timi waxa weeyaan markii uu ina ku halayn waayey annaga laftkayga kuwii qalinlayaasha ahaa
qayladii iyo sheekooyinkii muhiimka ahaa ee gobolkaas aan hore looga sheegin iyo inkastoonan buuga akhriyin inaan iska qirtee inkastay ceeb tahay intaad meel soo tagtaa tiraad buuga maan akhriyin laakiin waan ka hadlayaa waxaan ubaa in aad xog gaara naga siinaysid qofkuna haddii uu u dhaqaaqo oo uu qalin leeyahay wax aad ka faa'iido ka waayi maysid marna nin kale oo aan magaciisa sheegi doono nin kale laba nin baa magacyadooda sheegayaa xusuusiya oo haddaan ka kala tago waan ka tegay waan degi doonaa idinku raagi maaye cabdisamed nuur oo isaguna aan u aqaano nin soomaali ah oo aabbihii ninkii waddanka iga soo dhoofiyey baasboorkay siiyey uu ahaa inkastoo umad baran u diidi jiray baa la yidhi berigaa ayaa habeen wuxuu igu casumay nin kale oo soomaaliya oo la yidhaahdo maxamed cali america oo buug soomaaliya macnaha waxaan qiimahan uu qoraalku leeyahay buugga waa soomaaliga ah baan akhriyey 2 tusaaloo keliya baan kaaga soo qaadaya wuxuu yidhi markaan dalka marayey weli waa nin afqaaban laakiin buuggiisa markaad akridid nuxurka macnaha uu leeyahay qoraalku oo keliya kususaya wuxuu yidhi islaam baan u tegey xero qaxootiya joogta oo laxoox dubaysa canjeelo dubaysa carruurtiina ay u tuban tahay markaase waxay tidhi tii ay dubaysa way tidhi hooyo intan kusii sugaysaa isaguna wuxuu u yimi iyada in uu dhibaatada haysta uu maxay ahayd wax ka dhaliyo ha waa runtaa weeye soo gaabi baa laygu yidhi intii kale waan ka tegaya qoraalku iyo muhiimaddiisuun baan idiin sheegayey run ahaantii cabdirasaaq buugga kan uu qoray waynu u baahnayn waxaana aan rajaynayaa inanay qolyaha kale laftirkooda iyaga laftirkoodu sayniskuna bay isaga laftirkiisa ku daydaan ninkii ugu horreeyey ee Minnesota markaan diyaaradda kasoo degay soo qaaday isna halkan uu fadhiyaa Faysal baa la yidhaahdaa maantaan arkay waan garanayaa cid alla cid aan ahay waxaan ahay isagoon garanayn inuu soo qaaday taksiil uu ahaa lacagna kaa qaadi maayo igu yidhi shaqadii ugu horreysay laftirkeedana isagay geeyey wallah markaasuu ahaa markaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay